sanadku markuu ahaa 51 hijriga waxaa baxay saxaabigii weynaa ee Rabiic ibn Ziyaad asigoo hogaaminaya ciidankiisii oo ku hogaaminaya jidka toosan waxaana garabkiisa ahaa wiilkiisii geesiga ahaa ee Faaruq si ay kor ugu qaadaan raayatu tawxiid. Markuu dagaalkii bilowday wiilkiisii Faaruq wuxuu soo bandhigay waxyaabo cajiib ah. Kadib dagaalkii markuu dhammaaday waxaa guuleystay ciidankii muslimiinta. Rabiic ibn Ziyaadna wuxuu sameeyay wiilkiisii ayuu ku farxay wuxuuna siiyay waxyaabihii la soo qaniimaystay woona soo fasaxay. wiilkii geesiga ahaa wuxuu ku soo laabtay Madiinatul Munawwara asiga oo wato waxyaabihii oo soo qaniimaystay. xilligaasina da'diisu waxay gaaraysay 30 jir. wuxuu guri ka gatay Madiina wuxuuna guursaday gabar Ilaahay caqli siiyay. bilal markay ka soo wareegeen arooskiisa ma uusan hilmaamin in uu ku dagaalamo jidka Ilaah wuxuuna ku dhawaaqay ujeedadiisa in uu doonayo in uu ka tago gurigiisa uu aado goobta dagaalka. wuxuuna si niyad ah ugu sheegay xaaskiisa. waxay ku tiri yaad iiga tegaysaa aniga iyo cunuga calooshayda ku jiro. markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan idinkaga tegayaa Allah iyo naxariistiisa. kadib taa waxaan idinkaga tegay 30,000 oo diinaar ee ku isticmaal wax noloshaada iyo cunugaaga anfacaya. kadib wuu tagay. markuu ninkeeda baxay xaaskii waxay dhashay wiil aad u qurux badan waxayna u bixisay Rabiic. markuu Rabiic soo koray hooyadiis waxay u dhiibtay macallimiin. wuxuu si wacan u bartay qoridda iyo akhriska wuxuuna xafiday Qur'aanka Kariimka iyo axaadiistii rasuulka intii uu awooday. hooyadiisna waxay lacag badan ku abaalmarisay macallimiintii. hooyadiisna waxay ahayd mid markasta sugaysa aabihii soo laabashadiisa. laakiin waxaa dheeraaday maqnaashihii Faaruq. sanado badan kadib Rabiic waxa uu ka qayb geli jiray xalaqaatul cilmi. waxa uu ag joogi jiray saxaabadii wanaagsanaa dadkii ka haray ka oo hogaaminayay Anas ibn Malik ilaa uu ka noqday nin ay dadku jecel yihiin oo arday badanna haya. markii dambena noqday caalimul Madiina aqoonyahanka magaalada. habeenada ka mid ah Madiinatul Munawwara waxaa soo gaaray nin da'diisu ahayd 60 sano oo u socda gurigiisa. wuxuuna ahaa mid naftiisa isweydiinaya xaaskiisa iyo cunugii caloosha ay ku waday ma wiil bay dhashay mase gabar, ma nool yahay mise wuu dhintay. intuu arrintaasi ka fikirayay wuxuu hortiisa ka arkay gurigiisa. aad buu u farxay. farxaddii ayaa ka tambadisay asigoonan dadka guriga amar weydiisan ayuu guriga iska soo galay amar la'aan. Rabiic wuxuu arkay nin gurigiisa soo galay amar la'aan. wuu xanaaqay wuxuuna isku diyaariyay in uu la dagaalo. waxaa sidoo kale soo garab istaagay raggii la joogay. buuqoodii oo batay darteed dadka deriska ayaa ku soo baxeen. waxay arkeen nin aysan horay u arki jirin. Rabiic ayaa yidhi wallaahi maanta kuma daynayo cidna igama kaa celinayso. cadowga Ilaahay baa tahay. ninkii wuxuu ku yidhi anigu ma ihi cadowga Ilaahay dembina ma aanan gelin. waxaan arkay guriga albaabkiisa oo furan waana soo galay waana gurigaygii. kadib dadka ayuu ku jeestay wuxuuna ku yidhi qoomkaygiiow waxaan ahay Faaruq. muddo 30 sano ayaan Ilaahay dartiis u jihaadayay. xaaskiisu waxay ahayd mid hurdaysa. buuqaas ayay ku soo kacday. banaanka markay imaaday waxay aragtay ninkeeda. kadib waxa ay qabatay wiilkeeda waxayna ku tiri siidaa Rabiicow waa aabbaha. Faaruq wuxuu ku qancay wiilkiisa. Rabiicna aabihiis ayuu ku qancay. Faaruq wuxuu la fariistay xaaskiisa asigoo ugu sheekeynaya xaaladaha uu soo maray. kadib iyada oo niyada iskala hadlayso waxay tiri maxaad ii weydiin laadahay lacagtii faraha badnayd ee aa iga tagtay ammaane ahaan. waxaan ku bixiyey tarbiyeenta wiilkeena iyo waxbarashadiisa. iyadoo saas iskula hadlayso ayay ninkeeda xaggiisa soo fiirisay wuxuuna ku yidhi waxaan noo keenay 4,000 oo diinaar ee noo soo bixi lacagtii aad noo haysay aan isku darsano si aan ugu iibsano beer ama guri fiican oo aan ku noolaano. waxay ugu jawaabtay lacagtii waxaan dhigay meeshii loo baahnaa in la dhigo waxaanan kuu soo bixin doonaa maalmo kadib Ilaah hadduu yidhaahdo. sheekadu iyadoo halkaa marayso ayaa masjidka laga aadaamay. Faaruq wuu istaagay wuuna soo weesa qaatay. markuu albaabka ka baxayay ayuu wuxuu yidhi aaway Rabiic. kadib waxay ku tiri wuxuu kaaga horeeyaa masjidka salaada kadib. Faaruq waxa uu rabay in uu ka soo baxo masjidka laakiin wuxuu arkay meel ay ku wada kulmeen dhalinyaro iyo odayaal uusanna weligii arkin majlis la mida oo cilmi laga raacdo majliskan baaxadda dad ee ka soo qayb gala aawadii. dadkana kama tagayaan si wacan ayay u dhageysanayaan hadalka sheekha iyo waxa uu leeyahay waxayna ku xafidanayaan
buugagtooda ayay ku qoranayaan hadalladiisa iyo waxa uu sheegayo. Faaruuq wuxuu isku dayay in uu arko wejiga sheekha, balse uma suurtagelin sababtoo ah aad buu ugu fogaa. Markuu dhammeeyey majliska ama cashirkii, dadka dhan waxay aadayaan xaggiisa si ay u salaamaan sheekha. Faaruuqna wuxuu u jeestay nin agtiisa fadhiyey, wuxuuna ku yidhi, ilaahan kugu dhaarshe, sheekhu waa kuma? Wuxuu ugu jawaabay, sheekhu waa sayid ka mida sayidadii taabiciinta, waana imaamka magaalada ilaa yaraantiisii. Goobtiisana waxaa loogu soo buuxsamaa sida Maalik ibnu Anas wa Abaa Xaniifata Nucmaan iyo kuwo kaloo la mida, waana Rabiicatu Ra'y. Magaciisu waa Rabiic, laakiin dadka ayaa ula baxay Rabiicatu Ra'y. Sababta ay sidaas ugu magacaabeen waxay tahay hadday la soo gudboonaato arrin taasoo ay ka waayeen kitaabka iyo axaadiista rasuulka sallallahu calayhi wasallam, waxay ula imaan jireen Rabiic. Magaciisa saxdana waa Rabiic ibnu Faaruuq. Wuxuu dhashay markuu aabihii u baxay jihaad, hooyadiisna waxay kafaalo qaaday koritaankiisa iyo tarbiyantiisa. Intaas kadib Faaruuq wuu ooyay, wuxuu u soo degdegay gurigiisa. Markay aragtay Rabiic hooyadiis ilinta indhihiis ka qubanaysa, waxay weydiisay waxa ku dhacay. Wuxuu ku yidhi, waxaan arkay wiilkeena Rabiic halka oo cilmiga iyo sharafta uu ka gaaray, weligay ma arkin qof lamida. Xaaskiisa waxay ku tiri, keebaad jeceshahay, 30,000 oo diinaar ama halka uu wiilkaaga ka gaaray cilmiga iyo sharafta? Wuxuu ku yidhi, wallaahi tan baa iga fiican, tan baanan ka jeclahay maalka adduunyada yaallo dhammaantii. Waxay ku tiri, waxaan ku bixiyey waxaad iiga tagtay, wax walba ayaan ku bixiyey, ma kula fiican tahay nafsad ahaantaada waxa aan sameeyey? Wuxuu ku yidhi, haa, waa ii abaalgudday, asna waad u abaalgudday, dhammaan ummadda islaamkana waad u abaalgudday abaalgudkan ugu wanaagsan.